madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa maanta xarunta qasiga madaxtooyada kulan gaar ah kula yeeshay warshadleyda dalka kulankaas oo ay codsadeen maamulka sare ee warshadleydu. ugu horreyn warshadleyda dalku waxay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ku bogaadiyeen howlaha muhiimka ah ee uu qabtay muddadii koobnayd ee uu talada dalka hayay, gaar ahaan arrimaha nabadeynta iyo xasilinta gobolada bariga, qaramaynta ciidamada madaniga iyo xoojinta xiriirka Somaliland la leedahay beesha caalamka. warshadleyda dalku waxay madaxweynaha la wadaageen duruufaha iyo cabashooyinka ay qabaan, gaar ahaan arrimaha la xidhiidha cashuur dhaafka, qalabka, mishiinada iyo agabka warshadaha. sidoo kale warshadleydu waxay ka cawdeen maalgelin la'aan iyo tartanka adag ee ay kala kulmaan badeecadaha lagu soo warshadeeyay dibadda. waxay sheegeen in haddii la waayo garab istaagga xukuumadda ay warshado badan oo dalka ka dhisan ay halis ugu jiraan inay xidhmaan. madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa dhankiisa si taxadar leh u dhageystay dhammaanba arrimaha ay warshadleydu ka cabanayaan, isagoo ku bogaadiyey dadaalka ay ku jiraan wax soo saarka gudaha iyo kobcinta dhaqaalaha qaranka. madaxweynuhu waxa warshadleydu u xaqiijiyeen in xukuumaddu ay si dhaba u eegi doonto arrimaha ay ka cabanayaan si loo helo xal waara oo dhiirigeliya maalgashiga iyo horumarinta warshadaha maxalliga. madaxweynuhu waxa uu tilmaamay in warshadleyda dalka loo fududayn doono helitaanka dhul bilaasha oo ay warshadahooda ka dhisan karaan, isla markaasna ay xukuumaddu dadaal xoogan ku bixin doonto inay helaan shidaal jaban, koronto jaban iyo cashuur dhaaf sharciya wixii xeerarka maamulka maaliyadda qaranku ay warshadleyda dalka xaq u siinayaan. madaxweynuhu waxa warshadleyda xasuusiyey in wax soo saarka warshadaha ee gudaha dalku yahay furaha horumarka iyo madaxbannaanida dhaqaale ee dalka, sidaa daraaddeedna ay lagama maarmaan tahay in la abuuro siyaasad iyo istiraatiijiyad qaran oo dhiirigelinaysa warshadaha maxalliga, laguna ilaalinayo tartan cadaalad oo ka dhexeeya alaabta gudaha iyo tan dibadda lagu soo warshadeeyo. madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu maamulka sare ee warshadleyda dalka u sheegay in wixii warshadleyda dan u yihi ay xukuumaddana dan u yihiin. kulanka ayaa ku soo dhammaaday isfaham iyo niyad wanaag, iyadoo warshadleydu ay soo dhoweeyeen hadalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, isla markaasna ay uga mahad celiyeen dadaalkiisa iyo aragtidiisa fog ee uu ku wajahayo horumarinta warshadaha dalka Jamhuuriyadda Somaliland. Cabdicasiis Caydiid Cilmi, warbaahinta qaranka, qasiga madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland, Hargeysa.